Khadar Keyo oo fanaan dhalinyaro caan oo Soomaalida geyga Soomaalida dhan laga yaqaan ayaa waxaa lagu xiray dalka Ethiopia sidaas darteed waxaan please subscribe me saara channelkayga okay subscribe kayga waxaa okay please عدسي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبن الدين السلام يا مد الصومال المركز تدون كجوكتان سويتان فيديو قصو دوبي أو هورتي نوسو استاكي وحويان فنان أضغط قرنسان خضر كيو أو فنان دانيارو عانو صومالي جيجو صومالي دان لغا يقانا أيا waxaa lagu xiray dalka Ethiopia sidaas darteed waxaan fiidiyoga soo duubay in aan dadka u xaqiijiyo fanaanku inuu xiran yahay oo dadaalo badan aan maartay soo binay si aan wax badan arintaas aan ugu ogaado ani shakhsi ahaantayda marka fanaanku waayahan maalmihii isbuuc u dambeeyay wuxuu ku sugnaa magaalada Hargeysa shalay ayuu wuxuu u socdaalay dalka Ethiopia gaar ahaan caasimadda Addis Ababa fanaanka meesha laanta migrationka ayaa kulay ku dhagtay sababaha runtii ay fanaanka u qabsadeen aanu hadda halkan kama xaqiijin karo laakiin waxaan idin sheegayaa in fanaanka shalay toole lagu xiray airportka xalay toolana uu meesha ku xidhnaa marka xalay markuu meesha ku xidhnaa baaritaan iyo kulay waxbaa socday baaritaankii iyo kulay hawlihii socday kadibna maanta ayaa waxaa loo qaaday xabsiyada magaalada dhexdeeda ku yaala laakiin meesha xabsiga uu ku xiran yahay fanaanka kulli hadda idinma xaqiijin karo waxaan isku dayayaa inaan wax badan ka ogaado insha Allah ilaa caawa waqtiga dambe ilaa berri gelinka dambe waxaan idin soo xaqiijin doonaa meesha uu ku xiran yahay dad ehelkiisa oo xagga jooga oo waalidkii laftirkooda waan la hadlay qadka telefoonka ayaan kula hadlay iyagana waxay iga codsadeen inaan dadka bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago fanaanka inuu xiran yahay ay waxbana ka qaban waayeen marka insha Allah sidaas ula socda waan idin salaamay meel kasta oo adduunka joogtaan aad baan idin salaamaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبن الدين السلام يا مد الصومال المركز تدون كجوكتان سويتان فيديو قصو دوبي أو هورتي نوسو استاكي وحويان فنان أضغط قرنسان خضر كيو أو فنان دانيارو عانو Soomaalida geyga Soomaalida dhan laga yaqaan ayaa waxaa lagu xiray dalka Ethiopia sidaas darteed waxaan fiidiyoga soo duubay in aan dadka u xaqiijiyo fanaanku inuu xiran yahay oo dadaalo badan aan maartay soo binay si aan wax badan arintaas aan ugu ogaado ani shakhsi ahaantayda marka fanaanku waayahan maalmihii isbuuc u dambeeyay wuxuu ku sugnaa magaalada Hargeysa shalay ayuu wuxuu u socdaalay dalka Ethiopia gaar ahaan caasimadda Addis Ababa fanaanka meesha laanta migrationka ayaa kulay ku dhagtay sababaha runtii ay fanaanka u qabsadeen aanu hadda halkan kama xaqiijin karo laakiin waxaan idin sheegayaa in fanaanka shalay toole lagu xiray airportka xalay toolana uu meesha ku xidhnaa marka xalay markuu meesha ku xidhnaa baaritaan iyo kulay waxbaa socday
baaritaankii iyo kolley howlihii socday kadibna maanta ayaa waxaa loo qaaday xabsiyada magaalada dhexdeeda ku yaala. laakiin meesha xabsiga uu ku xiran yahay fanaanka kolley hadda idinma xaqiijin karo. waxaan isku dayayaa inaan wax badan ka ogaado insha allahu ilaa caawa waqtiga dambe, ilaa berri gelinka dambe waxaan idin soo xaqiijin doonaa meeshuu ku xiran yahay. dad ehelkiisa oo xagga jooga oo waalidkii ah laftirkooda waan la hadlay, qadka taleefonka ayaan kula hadlay. iyagana waxay iga codsadeen inaan dadka bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago fanaanka inuu xiran yahay, ay waxbana ka qaban waayeen. marka insha allahu sidaas ula socda. waan idin salaamaya meel kastoo adduunka ka joogtaan, aad baan idin salaamaya.